ugu soo diri waa naag lacag rabta matid ayagii baan imid waxaan warheedhe warqado aan leeyahay maaragtay naagtii baan weydiiyey ha warqado aad leedahay way soo dhici jireen oo awey cabdinaasir baa qashinka ku daray asagii baan wacay waxaan hooyo warqado aniga aan leeyahay oo saasa maaragtay maya oo soo naagtaadu igu tiri cabdinaasir baa qashinka ku daray hadday yaasmiin ku tiri cabdinaasir baa qashinka ku daray waa sida ay ku tiri waa runteed qashinkan ku daray hadal ma jira hadii hal bil baa ii dhimanayde halkii bil yani sifiigi iska aaday ilaahay baa mahadiyo shukri baleeh maalinkii dambe dhakhtarna waa la ii balamiyo de qof xanuunsan baan ahay dhakhtarkiina warqadaha la iiga soo diray kaali baa la yiri hadda de sharciga baad qaato oo caafimaadkaaga baa si fiican loo baarayaa idoo kankano arimihii waa ii kala furfurtiin ogaaday patientkii baan markaa hadda halkii 6 bilood lacagtii saas ay ugu dhaafto ayagii baa warqadihii loo soo direen adreeska ku haa ileen wayga qarin jireen halkii baa arintii sidii ku dhamaatay sidii markay ku dhamaatay marka aadu calaayo taxaal hadaad maqlaysaan Soomaali weynay saasa ay ku dhacday wiilkii maalinkii dambe wuxuu yiri naagtaydaad caydaa naagtaadeed nacab tahay waxaan ku dhiganaynaa gar waa mahadsan tahay waaba sidaa rabay hal lagula arkaan leeyahay hal lagula arko waayahay maalin heblo maalintii baan waayay markaan waayay yaa waxaa iri tawaayo waa idin sug ayay aw gartaadii dhiganayseen si fiican baad waxaan leeyahay islaamku arko laga qabto wuxuu yiri in talaadada nimankii aan garta u dhigan lahayn tabaliiq bay ahaayeeno way maqan yihiino Sheekh Cabdiraxmaan iyo meel bay jiraano marka ay yimaadaan baan ku dhiganaynaaye sida ogow haye waan waayay wadaadaan darisnahay oo asaga isku familyihiin baan u tiyaan saragnay waxaan walaalo ninkii saas u yiri oo maalinkuu ilaha naagtan ku laha war hooyada baad naag ku leedahay yaay ninkii garbaan idin dhigan odayaal baan ku yeedhanaynaa maxaan ku dhahay adigu ma ku jirtaa garta dadka la igu dhigayo may ana wacay ee fadhiiso waa sabti markaa shaqo ma jirto waa fadhiistay uu u yeeray uu u yimid markuu u yimid iyo ninkii la hadlo yiri war bal waran hebel adeer maxaa kugu dhacay hooyo saano sidan war naagtan buu yiri naagtan magaaladan ka joogi la'anahay waan ka harsan la'anahay naagtayday daba dhigatay naagtayday arki weyday waxaan leenahay araggaada markaan aragno waan ka naxanaa bidhaanteeda markaan arko waan ka naxanaa bidhaanteeda ma doonayno yeena nagu mashquulin dadka awlaad kale ma dhalin awlaadeeda ha ku mashquusho ninkii baa wuxuu yiri war mar labaad baan idinku celine war ma hooyada baad naag ku leedahay wuxuu yiri soo naag maaha ninbaa waxaan iri ma aniga baad leedahay 3 sano korka naga saaranta bidhaanteeda maanaad ka naxda ninkaan hadaan idinka sheekeeyo taariikhdan la soo maray horta 3 sano baa anuuna inuugayo waa run 3 sano aniga inuugayay oo dhabarka ku waday maxaan ku dhahaayay gambarka ii soo qaad baan dhihi jiray markuu inuugayo gambarku ii soo jiidi jiray allah maado inta leeg baad hooyada nuugi markii la dhaho intuu naaska sida marada isu saaru hoostayga nuugi jiray ama intuu cararu guriga gali jiray ninkaas sida ii galaya kaadidiisaan cabay gaajo darteed oo calashaan waxaan u cabay ayadoon sonkor jirin oo raashin jirin aabiya askari buu ahaa yaa sonkor la ii keenay askarta xerada la iga keenay baa hadee bac ma jirin bac iyo waxaas harqadii barkintaan la iigu keenay hortaydaan dhigay umushiisaan ku jiraa kaadi buu fay ku siiyay waxaan diiday inaan isdhaqaajiyo oo ay kaadidu ku bargoodo alla sonkortii wiilku ku kaajaha igu dhameeyaan iri inaan ilaa hadaan isdhaqaajiyo kaadidu isku goyni markuu ku dhameeyaan intaan gacantayda ku walaaqay yaan kaadidiisii cabay anaa dhamaystay ninkii saa markuu naagtaa helay naagu quba ku dhacday gabaygaan u tiriyay habaarkaan u tiriyayna Soomaali weyn ay iga dhagaysta waxaan naagi hay sixiray magaceeda sheegi mahaye qalbigaadi gubtay waadi kurbaysay qalbiga musbaar laga taag wajiga daamir laga mari ninkii aad jeclay gufaaca ureysan lagu saar hiblaaye gabdhaheeda sheegi mahaye kuma ciidamiyaan ilaaha boqoraan barye waadi daba dhigatay barada balaaye lagu gali
alla idamka ilaahay cariya ciila daaduun oo adoon cari iyo foolxumo la daaduun oo adoon filayn warqadaadii lagu dhib ninkii aan dhalay ee iga hiliyay naagtiisow markaad u hawoota xiniyaha dhabarka lagu geey ilaaha boqoraan baryay baradiyo beydkay ku nooshay adoo caafimaad qaba baa lagaa mari ilaaha baariyaan baryay baradiyo beydkay ku nooshay adoo caafimaad qaba baa lagaa mari alla hooyo taa ka guur oo ka guurso oo ka rayso oo mid ka khayr badan oo ridaada laga yeel masiibana adiga kuma asiibto horta intaana way ga fakatay iyo in kaloo ka badan sheekada waxaan kusoo koobayaa Soomaali weynay waa salaamantihiin waxaan hooyooyinka Soomaalida uga digayaa wiilkaaga tubara kale oo hooyadeed iyo aabaheed u duceeyaan hadday ku heshana isaga imo salsalaan haddii kale habar walba ay dhaxda marada ku xidho intuuna ku dilin ka carar aniga idin la hadlaya intuu saa labada garabay qabto way gilgilay gigigigiyuma darbiga madaxa ay saaray igu xoog iguma dhafinina way igu tiri mindina intuu soo qaato miiska igu garaacay wac haddaan naagtiisa aan laba beri u qosloonaya hebla seeta ana hadee ay dhab iga ahayne asaga uun ku madax buuxi leh way qosli hooyo seetahay hadee bartiiga miisto oon anagana ilaa nafley baan dhahnaa indhaha igu taagin indhuhu ka soo dhace intiiba iyo in kale intay ku darta boowe baby saasay tiri yaa sidii maaragtay caruurta yararka ah markaan cabsiinayna dhihi jirnay hebelay ama hebelo hooyada ha timaada ama aabaha yay dhihi jirtay ha yimaado beebigaygii xabiibi haddaan jacaylkaygu kuu sheegin ha yimaado aan say taleefon inta ku dhardhaarto asagoo shaqada joogayo kiyo ordiimaan markaasoo aan dhihi alla hooyo matiiba igu kaa soo dirtay ilaahay baan kugu dhaarshay qalbigayga xumaan baad ka buuxisay hadal aan ka naxahay dhihin mucjisaa tahay qabrigaagu ma qodmayo xabaashaada iman maya xabaashayda ha imaanin buu igu jawaab hooyooyinka Soomaaliyeed oo masiibada lagu arkay habarkaagu weyn oo gaadmada iyo shiishka taqaana wiilkayga way ka weyn tahay naagtaasi habarkaagu weyn oo gaadmada iyo shiishka taqaana hadalkaad cadaan u dhahday caad u gadisaaye oo hey intaada oo dhan wiil yahow taa iskaga leexo habarkaagu weyn oo gaadmada iyo shiishka taqaana hadalkaad cadaan u dhahday caad u gadisaaye oo hey intaada dhihin wiil yahow taa isaga leexaan hadalku soo gabagabeeyay Soomaali weynay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maqfariya dambi dhaaf allahayna siiyo kurbada aakhiriyada adduunkan allah naga salaam yeelo dhibaatada aakhiriyada adduunkan allah naga badbaadiyo ilaahay waxaan weydiisan hooyo islaameed meel kasta oo joogto oo maqlayso wiilkeeda inuu ilaahay bogeeda burcado mariyo dhibaatada uu igu sameeyay curadkayga inuuna ku sameeyay inuu sixran yahayna way iska cadahay mucjisooyin badan bay arkeen cunaha habeen lagu dhagay dheheen naagti baabaha la iga dhagay waa yiri ayaduna waa tiri allah ku adkeeyaan leeyahay intuu taa qabo barakiya nuurna dhaxdooda alla ma dhigo wiilashayda waa salaamantihiin iyo Soomaali weey salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu talasan yani idinka sugaya talada iyo tawfiiqdan allah ina waajiyo salaamu calaykum